kooxdii ugu awoodda badneed uguna halista badneed Sacuudiga hogaamiyahooda Rashash al-Ataybi wuxuu ka mid ahaa ciidanka qaranka Sacuudiga ugu dambeyn shaqadiisa ciidannimo ayaa laga eriyay wuxuuna bilaabay xirfad cusub taasoo ahayd inuu noqdo burcada dadka jidka u gasha wuxuu dadka ka qaadan jiray lacagahooda iyo baabuurta ay wataan kooxdii hoos iimaanaysay waxay gaarayeen Rashash al-Ataybi waxaana ku jiray mid ay dhashay hawaryartiisa inta badan dadka waxay ku dhici jireen tariiqul Xijaaz waa wadada xujayda waxayna u dhici jireen dadka hab cajiib ah waxayna sameyn jireen in ay dhigaan baabuurtooda wadada iyagoo iska dhigi jiray dad uu baabuurka ka halaabay kadibna dadka ay dhici jireen waxaad isleedahay ciidankii amniga Sacuudiga laakiin ugu 1980kii ma jirin ciidanka amniga wadooyinka kadib dawladda Sacuudiga ayaa isku dayday inay qabato Rashash iyo kooxdii uu watay laakiin way awoodi waayeen dawladda Sacuudiga kadib ay u balan qaadeen cidii soo sheegtay in ay lacag siin doonaan ciidanka Sacuudiga ayaa 6 sawir oo kooxdaasi ka tirsan ku faafiyay meel walba maalin maalmaha ka mid ah Suldaan iyo walaalkiisa Mahal waxay go'aan ku gaareen in ay dharkooda geystaan meesha dharka lagu dhaqo shakhsigii lahaa meesha dharka lagu dhaqaayay markuu arkay isla markii wuu gartay maadaama ciidanka Sacuudiga ay sawiradooda ku faafiyeen meel walba markii ay dharkooda dhigteen meesha wuxuu ku wargeliyay ciidanka isagoona u sheegay kooxdii sawiradooda ay faafiyeen ciidanka amniga laba ka mid ah inuu arkay kadib ciidanka amniga ayaa dejiyay qorsho kaasoo ahaa mid ka mid ah askarta sirdoonka Sacuudiga in lagu dhex daro shaqaalaha ka shaqeeya meesha dharka lagu dhaqaayo si ay ugu fududaato gacanta inay ku dhigaan Suldaan iyo walaalkiisa isla maalintii kale waxaa imaadeen Suldaan iyo walaalkiisa Mahal askartii ayaa gacanta ku dhigtay Mahal ayaa walaalkiis Suldaan ku dhahay nadil aniga iyo ciidanka maadaama uu watay Suldaan qori laakiin Suldaan oo cabsi badan ka muuqatay isagoo u naxay walaalkiisa Mahal xabadna kuma tuurin askartii iyo walaalkiisa ugu dambeyn wuu isdhiibay Rashash ayaana ka war helay in ciidanka sirdoonka ay aad u baadi goobayaan Rashash ayaana go'aan ku gaaray inuu ka tago Sacuudiga wuxuuna go'aan ku gaaray inuu u cararo Yemen wuxuuna ahaa qof aad u yaqaan saxaraha isagoo ka gudbay xuduudda Sacuudiga wuxuuna galay dhankaas iyo Yemen sirdoonka Sacuudiga oo ka war helay in Rashash uu u gudbay dhankaas iyo Yemen ayaa waxay la xiriireen sirdoonka Yemen iyagoo ka codsaday inay gacanta ku soo dhigaan una soo gacan galiyaan ciidanka Sacuudiga waxaana gacanta lagu dhigay 3 ka mid ah kooxdii uu hogaaminayay Rashash waxaana u dhignaa ciidanka inay qabtaan qaxasna wuxuu u cararay dhankaas iyo buuraha askartii ayaana soo daba gashay israsaaseen aad u dhexmartay isaga iyo askarta ugu dambeyn qaxas rasaastii ayaa ka dhamaatay waxaana u soo hartay hal xabad oo kaliya wuxuu go'aan ku gaaray intii askarta ay gacanta ku dhigi lahaayeen inuu isdilo ugu dambeyn isaga ayaa gacantiisa isku dilay laakiin waxaa soo haray Muslix kaasoo go'aan ku gaaray inuu u aaro kooxdiisa wuxuuna qorshaystay inuu weeraro maxkamadda boqortooyada Sacuudiga wuxuuna ka soo galay mid ka mid ah albaabada gadaal oo ahaa kuwa aan amnigooda adkayn wuxuuna dili rabay Malik Fahd waxaana u dhexeeyay hal albaab oo kaliya daqiiqadihii ugu dambeeyay isagoo ku jira oo raba inuu dilo Malik Fahd waxaa ka soo gaaray kabtan ka mid ah ciidanka wuxuuna isla markii dilay Muslix waxaana soo haray Gacayid laakiin qisadiisa waa laga qariyay warbaahinta sidoo kale waxaa la sameeyay iyaga dartooda ciidanka amniga ee wadooyinka halkaas ayay ku egtay kooxdii uu hogaaminayay qisadooda Rashash al-Ataybi